بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aan uga warramaynay taariikhda oodna ka daawanaysaan telefishinka BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aan u galin. maantana waxaan diiradda saari doonaa taariikhda caleema saarka boqorkii boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. taariikhda markay ahayd bishii koowaad maraysay 1987 waxaa la caleema saaray boqorkii boqortooyada soo jireenka Soomaaliya boqor Mayow Xuseen Abow Aalashay. caleema saarkaasi oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan tuulada Hakaw oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. waxaana ka soo qayb galay caleema saarkaasi dad aad iyo aad u fara badan oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya oo dhan. haba ugu badnaadeen dadkaasi ka soo qayb galay kuwa ka kala yimid kow gobolka Banaadir, laba gobolka Shabeellada Dhexe, saddex gobolka Shabeellada Hoose. munaasabadaasi caleema saarka boqorka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya ayaa aad iyo aad looga dareemay dalka Soomaaliya oo dhan, waxayna gaarayeen dadka ka soo qayb galay munaasabadaasi caleema saarka boqorka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya ugu yaraan 4,000 oo ruux, iyadoo dadkaasi hormuud u ahaayeen reer Sheekh Xasan Buraale iyo reer Sheekh Cashir Maadow. waxayna ahayd maalintaasi maalin ku weyn shacabka Soomaaliya, waxayna aad iyo aad ugu faraxsanaayeen in ay caleema saaraan boqorkoodii boqortooyada soo jireenka Soomaaliya boqor Mayow Xuseen Abow Aalashay. boqor Mayow Xuseen Abow Aalashay oo fac ka fac waalidiintiisa ahaayeen boqoro isdhaxla asiga oo ka dhaxlay aabihiisii boqor Sheekh Xuseen Abow Aalashay, asigana uu ka dhaxlay walaalkiisii boqor Sheekh Mayow Aalashay, asigana uu ka dhaxlay adeerkiisii boqor Sheekh Ibraahim Aalashay, asigana uu ka dhaxlay walaalkiisii boqor Sheekh Maxamed Aalashay, asigana uu ka dhaxlay walaalkiisii boqor Sheekh Axmed Aalashay, asigana uu ka dhaxlay walaalkiisii boqor Sheekh Cabdulle Aalashay, asigana uu ka dhaxlay walaalkiisii boqor Sheekh Abow Aalashay, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Sheekh Sheegow Cusmaan loo yaqaano Aalashay, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Sheekh Cusmaan Ibraahim, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Sheekh Ibraahim Xasan, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Sheekh Xasan Samow, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Sheekh Samow Xasan, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Sheekh Xasan Nuur, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Nuur Boore, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Boore Carfaale, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Carfaale Aw Sheekh, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Aw Sheekh Cali, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Cali Ciise, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Ciise Cumar, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Cumar Tukul, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Tukul Cabdalla, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Cabdalla Dayle, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Dayle Adke, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Adke Kasaanle loo yaqaano Gareen, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Kasaanle Kulle, asigana uu ka dhaxlay aabihiisii boqor Kulle Waalmage. kadib waxaa ugu horeyntii munaasabadaasi ka duceeyay Sheekh Mukhtaar Sheekh Abi Yunus Sheekh Cashir Maadow.
كطود أشم. intaasi kadib waxaa xusid mudan culimmadii waaweyneyd halkaasi soo xaadiray oona saxiixay warqadda caleemasaarka boqorka boqortooyada soo jireenka soomaaliya boqor mayow xuseen abbow aala sheykh waxaana ka mid ahaa kow sheekh mukhtaar sheekh abayuunus sheekh cashir maadow labo sheekh maxamuud xaaji sheekh maxamed sheekh cashir maadow saddex sheekh cashirow sheekh xasan sheekh cashir maadow afar sheekh ismaaciil sheekh xuseen sheekh cashir maadow shan shariif sheekh cali sheekh muxiyidiin sheekh cashir maadow lix sheekh cali sheekh yuusuf sheekh muxiyidiin sheekh cashir maadow toddobo sheekh mukhtaar sheekh cabdi sheekh abubakar sacmaweeye sheekh cashir maadow siddeed sheekh xuseen sheekh yacquub sheekh maxamed maadow sagaal sheekh cabdicasiis sheekh mukhtaar sheekh abayuunus sheekh cashir maadow toban sheekh saalax sheekh maxamed sheekh aways maxamed maxamuud kow iyo toban sheekh abubakar sheekh shariif sheekh baawow. أنا الأمن درع لك ساتر، أنا طرفك السهر الناظر. أنا الأمن درع لك ساتر، أنا طرفك السهر الناظر. أنا سورك الشامخ العامر، أصد المنايا كطود أشم. dadweynihii caleemasaarkaasi ka soo qayb galay ayaa wakiishay culummadaasi in ay saxiixaan warqadda caleemasaarka boqorka boqortooyada soo jireenka soomaaliya boqor mayow xuseen abbow aala sheykh iyadoo la joogay markaasi siyaaradii sheekh xasan buraale iyo siyaaradii sheekh xuseen cashir maadow waxaana lagu caleemasaaray halkaasi boqorka boqortooyada soo jireenka soomaaliya boqor mayow xuseen abbow aala sheykh. وأقسم بالله يا موطني لأحميك يا قبلة المؤمنين. وأقسم بالله يا موطني لأحميك يا قبلة المؤمنين. بعزم قوي فلا ينثني وأفدي ثراك بروح ودم. caleemasaarkaasi oo jawi fiican ku dhacay dadweynaha ay ka muuqatay farxad iyo jacayl ay u qabeen boqorkoodii 703aad ayadoo dadweynaha halkaasi ka soo qayb galay ay hurmuud u ahaayeen culimmada reer sheekh xasan buraale iyo reer sheekh cashir maadow waxayna ahayd maalintaasi maalin taariikhi ah oo lama iloobaan ah aad iyo aadna ugu weyn shacabka soomaaliya. ugu dambayntii munaasabadaasi caleemasaarka ah ayaa ku dhammaaday jawi deganaan iyo farxad leh.